barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. sheeko xariiradu waa qayb weyn oo lagu tiriyo qaybaha suugaan afeedda ay Soomaalidu hodanka ka tahay marar badan sida la moodaysa kuma saabsana maaweelinta dhallaanka oo keliya waxaase run ah oo cidina aanay dafiri karin inay tahay hab soo jiidasho leh oo carruurta yaryar lagu seexiyo laguna baro dabeecadda degaankooda iyo hanaanka nolosha bulshadooda intaa ka sokow waxaa mararka qaarkood dhici jirtay in colaad maanso ay laba gabyaad ka dhex aroosanto intii muddo ah siday hootooyinka maansada isugu halgaadayaan in marka dambe ay arrintoodu cay iyo aflagaado isu rogto dabadeedna labada midkood inta maciin moodo uu sheeko xariirada u bayro si uu doodiisa ugu xoojiyo raggii ay taas oo kale ka dhex dhacdayna waxaa ka mid ahaa labadii maansiyahan ee lagu kala magacaabi jiray Faarax Xuseen Sharmaarke iyo Maxamuud Muuse Mataan oo soddonadii qarnigii hore maansadii ay isu tiriyeen awgeed ku eedoobay dagaalkii markay isku cabeebeen cid kale joojisana geyigii laga waayay ayuu Faarax soo xusuustay sheeko xariiradii maroodiga iyo atoorka ay Soomaalidu ka sheegi jirtay isaga oo maroodiga iska dhigaya Maxamuudna atoor ku tilmaamaya maroodigaas waa la wada yaqaan taraw atoorku waa maxay sidee bay sheekadoodu u dhacday hasugi waayay sagaaladu waxay ka mid tahay duurjoogta teeda la ugaarsado ee wax ka hilib roon markay weydo ay dabatadu dabinada u dhigato ama intay gagabis ku disho ay cunto moodo caadooyinka la yaab kale ee ay leedahay duurjoogta kalena ay kaga duwan tahay waxaa ka mid ah saaladeeda oo aysan kala firdhine ay isu soo ururiso meel qurana ay tuumiso cilmi ogaareedka Soomaalida haddii ay tahay in la raacana sagaaladu afar jaad ayay u qaybsantaa waa guuyo waa manjacas waa qusley oo waa golcas keeda laboodka ayaa af Soomaaliga atoor lagu yiraahdaa dhadigeedana yacbaa lagu magacaabaa xagga suugaanta markii laga eego waxaa jira mahmaaho sagaalada ku soo arooray sida harag sagaara iga kacmooyo iga durugma leh sagaara mircawa iskuma mooga sagaara laba tun oo la kala qalama leh iyo qaar la mid ah waxaa iyaduna jirta oraah caan ah oo ay sagaaladu ku xusan tahay badanaana la maqlo laba ruux oo inta isku wanaagsanaan jiray maalin uun ay xurguf lama filaan iyo dhex martay dabadeedna uu midkood ku sheekeeyo tani si ay u dhacdayba garan maayee aniga iyo hebel sagaal biyo waa cabtaa iyo ma cabto weligayo iskuma aanu qaban hal abuuradii Soomaalida ee maansooyinkoodii sagaalada ku soo qaadayna waxaa ka mid ahaa Salaan Carabi gabagiisii hadaaqsi la baxay tuduc ku jiray waa kii ku lahaa nin sagaalaha ee taynayo haaban kari waayey isagoo hunguri waashido een hedoga yaabaynin hawaydu kama maaranteen heesiga dhala ee haleelada ma daayeen nin cunay hilib ogaadeen kolka hadduu bay habboon tahay aan dhagaystayaal idiin soo gudbiyo sheeko xariiradii maroodiga iyo atoorka oo kooban anigoo ku xijin doona geeraarkii uu Faarax Xuseen sheekada ku xusay waxaa la yiri waxaa jiri jiray ceel biyo badan oo markay oonto ay duurjoogta oo idil u soo aroori jirtay kana cabbi jirtay wuxuu ahaa ceel ay u sinaayeen dhammaan duurjoogta kuweeda ugu waaweyn sida maroodiga libaaxa iyo wiisha iyo kuweeda ugu tabarta daran sida sagaarada shimbiraha iyo bakaylaha maalintii dambe xilli ay jiilaal kulul tahay ayaa waxaa ceelkii u soo aroortay sagaaro oo atoorkii boqorka u ahaa oo hor socdo markay biyihii cabtay dhowr jeerna ay ku rakaadatay ayay u harsi doonatay agagaarka ceelka geedgaabkii ku yeel dabadeed atoorkii oo calooshii buuxsaday ayay mar qura wax ku soo dhaceen tobaneeyo sagaar isaga oo hogaaminaya ayuu ceelkii dib ugu noqday oo inta ciid iyo dhoobo ka buuxiyey haddana oodafo weynaatay afka ka saar soo kibir baa taabtaye wuxuu ku tashaday maalintaas kadib duurjoog dambe inaysan kaba cabbin ceelka muddo gaaban kadibna waxa aysa soo dhigay maroodi iyo wiil oon bastood la ah oo inta kalkoodii soo galay aroor ah kaalinkii ceelka markay u soo dhawaadeenna waxaa u muuqday wax aanay filayn waxay indhaha ku dhufteen ceelkii oo ood afka laga saaray iyo atoorkii oo dul fadhiya markaas bay yaab u go'een hase ahaatee cidda falkaa ku kacday inay atoorka tahay markay ogaadeen kumay soo boodine way u miiriyeen maroodigii ayaa ku yidhi waryaa atoorow qoraxeed xun baanu ku jirnaa oonna waanu la liidanaaye hana oomin ceelka aad ciidda ka buuxisay annagaa qodaynee geedkaa iska harso hadhowna wax biyihiisa afka saara adigu ugu horree hadalkaa qabowse atoorkii rabbi wax ugama dhigin
markaasuu isaga oo yasaaya maroodigii ku yidhi ceelka cid ka cabbaysaa ma jirtee calaacalka intaydun iska daysaan xoog iyo itaal kaga cabba haddii kale sawaxanka igala kortaga maroodigii baa kolkaa isaga oo aan dheefin wuxuu isku dayey inuu atoorka si walba ugu caqli celiyo wuxuu u faahfaahiyey aayo xumida kibirka iyo guuldarrada galdarrada laga dhaxlo wuxuu xusuusiyey in ceelka loo siman yahay ee aanu ahayn miduu isagu gacnihiisa ku qotay ama uu aabbihii uga haray dhinaca kale wuxuu ugu caqli celiyey isaga maroodiga ah iyo wiilku mar hadday ceelka ka cabbaan inay muddo dheer ku qadaan kana maqnaadaan halka uu atoorku yahay midka dharaar walba iska ag jooga ee ka waraaba sidaa darteedna ay ku habboon tahay iyadaa dani ugu jirtaaye intuu xagga nabadda u xagliyo inuu iyagana ceelka miila uga ogolaado ugu dambaystii wuxuu ku xabsi geliyey isaga iyo wiilku inay uunka eebbe ugu xoog badan yihiin taana uu ku ogaan karo geedaha quracda ah ee intay jirta siibeen ay iyagu dhulka soo dhigeen atoorkuna uu indhihiisa ku arki karo hase ahaatee waxaas oo waanahaya waxa oo tusaale ah atoorkii wax yarna kama bedelin waxaana la abankacay geed nagaarka jilabka lagu magacaabo markii uu geesihiisa yaryaaraa dhowr jeer ku hirdiyey talaxumadiisa waxay ka ahayd dhoolatus uu awooddiisa ku muujinayo bahallada waaweyn ee meesha taaganna uu ku bajinayo dabadeed jawaab kale sidii looga sugaayey waatuu atoorkii ku xiro dalaaqay iyaga oo ooman inay oonkooda la fulaan haddii kale dirir laysku baaba'a ay goobta ka dhici doonto maroodigii oo xiro dalaaqaas ka hor aan caroon ayaa mugga camal guhaadooday ciidna la madax wareeray markaasuu jeegihiisii balbalaaraa iyo foolkiisii xoogga badnaa intuu kala faanay ku dul saarooday oo fud weyn madaxa kaga bashaaqay halkaasoo isla markiiba uu atoorkii ku baktiyey dabadeed markii sidaas awoogood loo dilay ayay meel ay joogtayba sagaaro oo idili kulan isugu timi waxay ku tashatay inay maroodi disho welibana ay u disho isla habkii uu isagu wax u dilay sidaasna ay ugu aarto atoorkii ay ka soo fireen maalintaas bay sagaara ku heshiisay tu waliba inay meel qurasaaladeeda ku ururiso si kolka dambe markay isku biiriyaan ay u noqoto wax la egtii maroodigu uu abkood ku aynabay siday haddaba sheeka xariiradu leedahay maroodi godobta kaga maqan iyo tashigii ay isku dhaarsatay ayaa sagaaro ugu wacan saara ururinta joogtada ah ee ilaa maanta ay ku howlan tahay si kastaba ha ahaatee faarax xuseen oo sidaan soo sheegay u dan lahaa gabyaagii la oran jiray maxamuud muuse ayaa sheeka xariiradan geeraas dheer u rogay waxaynu ka soo qaadanaynaa qaybihiisa ugu horeeya ee sheeka xariirada huseeya wuxuu yidhi war allaahu akbar ee atoor guuyo sagaariyo aw bariis weyeeleed iyo maroodaa is-ilaaqayoo aroor bay ku kulmeen abtadii dulmayeedana atoor baa u lahaayoo ceelkiibuu asaruuray aw maroodi ku laab atoorow hana oomin aminkan aynu joogno amnac baa la yidhaah annana haatan nafteenna asqaan meesha la naal ceelkanaad asaruurtay bal intaan ka qodayno ayar geedka fadhiiso aminkaan ka idlayno ilihiisa bannayno annagoon afka saarin bal uurkaaga ka buuxso atoorkii ku jawaab maroodow orka daa afku yuusan ku daalin ceelka waa laga oomi anigaa asaruuray oo tiid baan ka qabaa ama oonka la luuda ama oohinta daaya oo addimowla imaada waa akhyaar camalkeedii aw maroodi ku laab atoorow abtigeenow aabil layskuma maago ilma maahid carruura eedinooma horraynin idiflayda sagaarana adigaa u amiira ceelkaad ooda kor saartay adoogaa ma lahayn addinkaa kuma faagin wax ilaah aan ahayna amar waa ku lumaan annana eeqa ma fiicnee ijaadaanu rabnaa mar haddaan afka saarno omas baan u fullaa ayaamaan ku qadnaa adiga iska ag joogay amin doonta waraabo ayaantii aan nimaadno miiro noo ogolow intii eebbahay uumay wiilkaani ag joogiyo anigow addin weyn quracdaan alkaxaynay waa tan ceelka agtaada indhahaaga hortoodana adba waad aragtaa war allaahu akbarey waa wax mawd ka adeegaya inkiryo kama yeelinoo qusla aqaba diidiyayoo jilabgeeska la aadiyo inaad oon la fushaan ama laysku idlaan buu araddii ku dalaaqay war allaahu akbarey waa ninkii aad ogayda iliguu kala faanayo diguu oofta ka saarayo oo turaabtaa kula aasay atoor guuyo sagaarana araggiisba lawaa al'aankaas aynu joogno aan maroodi asiibniyo awowgeen aan u aasay ab sagaara qabtaayo waa tan hiisa uruurin
adilin hadalkeedana mahmaah bay ku idlaysay oo tanaa noola ekoon sida sheeka xariirada laga dhadhansan karo waxaa dhagaystayaa lama huraan inta aadan cadowgaaga dagaal ugu bareerin inaad si buuxda taagtiisa u qiimaysid dabadeedna wixii kuu soo baxa aad wax ku qaadatid murtidaasina waa sababta markii atoorku garan waayey uu awgeed naftiisii ku waayey barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta waa naga intaas waa inoo toddobaadka soo socda hadduu eebba idmo